بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله waxaan hadda waqtigan u qabanay saxaafadda inaan ka warbixino oo xisbiyada mucaaradka uga warbixino oo bulshada u sheegno kulankii wada hadalka la sugayay labada xisbi mucaarad iyo xukuumadda iyo xisbigeeda inaanu u sheegno wixii aanu kala kulanay iyo waxaanu kala nimi waxa todobadii caawa ballan madaxtooyada lagu qabtay oo labada xisbi mucaarad ka qayb galeen laba xubnood na lagu wargeliyay ballantii hore noogu xidhnayd ee ahayd 18 May dabadeed aan kulanno laba xubnood oo wadani ka socda oo ahaa aniga iyo masharax madaxweynaha Amiin Cabdiraxmaan Ciro iyo Faysal gudoomiyaha iyo ku-xigeenkiisa afarta xubnood baan ku tagnay markii wada hadalkii furmay annagu ajandihii aanu ula tagnay waxay ahaayeen in arintii doorashada ee la isku maandhaafsanaa uu madaxweynuhu ka daayo carqaladda komishinka oo ahaa waxa weeye hay'adii u dhaxaysay xisbiyada hay'adii doorashada hay'adii madax banaanayd ee loogu talagalay inay doorasho qabtaan dalka ka qabtaan oo aanu arkaynay inay faragelin ku sameeyeen una sheegnay inaanu aragno tallaabooyinka uu qaaday oo dhammaan inay faragelin yihiin inuu ka daayo madaxweynuhu loona ogolaado shaqadooda inay qabtaan lana soo dhameystiro xubnaha kale ka dhiman marka labaad xilligii doorashada oo 13 November ay tahay doorashadii madaxweynuhu in madaxweynuhu qorshihii doorashada la qaban lahaa iyo timetable-kii la isla waafaqo saddexda xisbi iyo madaxweynaha iyo komishinku isla qorsheeyaan la isla saxeexo oo ay noqoto mid cad oo yani aan kama hufta ah oo yani la isla garto oo aan mugdi iyo warware ku jirin taana waxa ka muuqatay inay mugdi geliyeen oo aanu madaxweynuhu kaga sugnayn war cad naga siin waa marka saddexaad ee oranaya waxa weeye diiwaangelintii iyaduna oo bilaabmi lahayd 20 bisha oo komishinkii carqaladan soo dhex gashay in iyadana shaqadeedii la bilaabo markaan soo ururiyo qodobadii aan ula tagnay dhammaantood waxba kagamaan heshiin waxba iskagaan afgaran waa la isla mari waayay waxaananu ku kala nimi anagoo halka isla dhaafin noomay muuqan wax yani horumar oo isumaatin dambe uu dhalinayna nooma muuqan iminka waxaan isla gaadhnay ma jirto waa mahadsantii